14 أكتوبر qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho kuwa ilaa iyo hadda lagu leenayo maatada aan waxba galabsan yay tahay cid lagu la xisaabtamayo mas'uuliyadda qaraxyadaasi yay tahay cid qaadanaysa eedda ah dayacaadda shacabka iyo tan amni ee dalkeenaba kuwa amniga mas'uulka nooga ah gaadiid aan rasaastu karin ayay magaaladan ku dhaxmarayaan ma jirto cid la xisaabtamaysa iyaguna dadka uma naxayaan sidoo kale inta isceebsadaan kama hor wareegayaan shacabkan dhiban ee muddada la dulminayay aqli daradooda kaaba sii daranay waxay doonayaanba inay dib u soo noqdaan oo dib loo doorto dadkan ay u aramiyaan ma beer aan nixin baa ku yaala mise ma garanayaanba micnaha mas'uuliyad qaadashada aan tusaaleyno waxa ay ka dhigan tahay micnaha mas'uuliyad qaadid aynu eegno dalka Lubnaan halkaas oo ay mashaqo ka dhacday qaraxii ka dhacay Lubnaan gaar ahaan Beirut waxa uu sababay inuu xilka iska casilo ra'iisul wasaaraha dalkaasi maalin kadib markii mashaqadaasi ay dhacday Xasan Diyaab ayaa sheegay inuu xilka isaga tagay sabab la xiriirta markii dadkiisa ay ka caroodeen wixii dhacay xubno ka tirsan wasiiradiisii ayaa sidoo kale iska casilay xilka duqii magaalada Beirut ooyin ayuu afka furtay oo waa la aamusin waayay لذلك أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة haddaba dadka reer Lubnaan waxaan u sheegayaa in aan maanta aan ku dhawaaqayo in aan iska casilay xilkii ra'iisul wasaarnimo ee dawladani guud ahaan reer Lubnaan waxaan u rajaynayaa horumar iyo barwaaqo الله يحمي لبنان taasi waa micnaha mas'uuliyad qaadid iska badaa madaxdeena inay iscasilaan ama inay ooyaan xitaa waxa laga leeyahay hadal naxariis leh oo dadka Soomaaliyeed loogu laalqaboojinayo ma aragtay mas'uul Soomaaliyeed oo ilaa iyo hadda soo banbaxay oo na ka hadlaya dhibaatada shacab ahaan soo gaartay shalay intii uu san dhicin qaraxii weynaa ee Hotel Elite wasiirka wasaaradda amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow waxa uu sheegay in guud ahaanba ay tahay in la xiro jidadka waxa uu tusaale u soo qaatay hooyo uur leh iyo sidoo kale meydba inay jidadka ka gudbi karin wax yar kadib qarax weyn ayaa dhacay hawshu ma la fududeeyay mas wax kala si ah haddii kale Soomaal ana xilkii ku weynay ogaada haddaan inta sameeyo ana xilkii ku weynay aniga uma joogo meesha umana imaanin shacabkana xilkan uma qaadin in aan iska soo fadhiisto aan baawar bunguuf ku socda gurigayga si dhex joogo kaadi badane waa loo gogol badiyaa ayay Soomaalidu tiraahdaa warkiisaasi wasiirkeena waxa uu beenooday markii 600 oo qofood ay ku dhinteen qaraxii Zooba ka dhacay welina uu sii xijistay kursigiisii eedda keli kuma aha wasiir Islow balse madaxdeena oo dhan ayaa ka siman arintan waxay dalka u yimaadeen inay jiif ay wax ku jaqaan isla markaasna ay dadka dhiigooda cabaan iyagoo aan waxba u qaban kana qani noqdaan fadlan shacab Soomaaliyeed oo aan wada kacno sidii aan ugu dhidhin lahayn dhibaatadan habeen labadiisa gelin digiya qarax baan maqlaayo dhaguhu ila guuxayaan hurdada kami waaye jiifka hadduu galow meelka yeedho dhulkay la gariirayo gawdu ihayaa wadnu waxaan galabsaday dadu waxay iga goynayaan